bulshada reer Somaliland dadweynaha dhalinyarada dumar biciyalba igoloweyne saxaafada iyo shaqaalaha waxaan ku salaamay salaanta islaamka salaamu alaykum wa barakaatuh hadal dabadiyo ama dabadina waxba tareelay hadalka wala dhameeyay waxa kale oo ku soo oranaya nabadgelyada la adkeeyo oo la ilaaliyo aad loo ilaaliyo war laga warmaana marka galna qodobka toddobaad ee nabadgelyada siyaasadda arrimaha gudaha aanu ka hadlayno siyaasadda arrimaha guduhu waxay u baahan tahay ilaalin badan iyo soo jeed badan iyo ilaalin badan bay u baahan tahay magaalada kooniyaasheeda waxa ka buuxa gebiga balad waxa ku xeeran balad isha koro guriga ku xeeran oo inagoo leenahay dhamaantood waxa ku jira dad jaanaba washmaanka inta ka tiri leeyihiin cid ka shaqo naqaano idoo tama naqaano ilaa kariya ma naqaano waxaas oo waxay u baahannahay in doorta loogaado marka magaalada laga fahmo magaalada dibadaheeda dhirta hooyada ku taalee meelaha dooxada ku taala dad baa qeylaa taga malaayiin oo nooc walba leh dadka laftoodu waxay u baahan yihiin la deegaanka loogaado laga warhayo waxa kaloo ay cadow badan u yeelanay baa jira imika dalka waxa degan Tugriga meel la yiraahdo Tugriga oo safaarad Tugriga lagu sheegay cadowga u weerarey la degan deeweeyar wuxuu naga dhax qabanaya madaxweynaha waxa soo jeedinaya in dhaxal laga saaro dadka Tugriga safaarad dalka taliyada in dhaxal laga saaro ayaa soo jeedinaya waan maqlay Djibouti inay baxday isagana laga dabageeyo dadii adduunka jooga wuxuu wareer baaga baxayaan nabadgelyada ilaa xayawaanka dhulka ku nool xayawaanka la adeegsanaya ayga la adeegsanaya uriyaha la adeegsanaya oo dabeeraha la adeegsanaya wax walba ana aad u eegno inta badan yeelana ku soo guuray. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.